iyadoo habeenadii u dambeeyay degmada Afgooye ay ka jirtay falaalka ammaan ka baxsan oo ay geysanayaan kooxo hubeysan oo iyagu u soo shaqo taga xilliyada habeenkii dadka shacabka ku dhaqan degmada Afgooye ayaa saacadihii u dambeeyay waxa degmada ka dhacay dhac baxsan oo ay geysteen kooxo hubeysan falaalkan ammaanka ka baxsan ee lagu dhacayo dadka shacabka ayaa inta badan waxa ay ka dhacayeen xilliyada habeenkii xaafadaha kala ah Xawataako Imbagaati iyo Fiaqiro saacadihii u dambeeyay ayaa dad shacab ah lagu dhacay xaafada Xawataako waxaana kamid ah dadkaasi agaasimaha guud ee shabakada wararka Dayax Radio Maxamed Cabdi Garyaqaan intaasi kadib ayaa waxa uu ka xog wareystay dhacdadii uu la kulmay xalay isla markaana sida wax u dhaceynay sheegay Cabdifataax waa mahadsantahay xalay abaara sagaalkii fiidnimo markii ayad ayaan ka tagay xarunta idaacadda ayaan markaasi ka rawaxay anigoo ku sii wajahnaa hoygayga markaan gurigayga albaabkiisa aan tagay oo aan garaacitaanka ku bilaabay ayaa waxaan la kulmay si kadis ah laba ruux oo markaasi jaakada watay oo wajigooda aan muuqanin isla markaana mid kamid ah watay qoriga AK47ka kadibna waxaa dhacday in labadaasi ruux ay handadaan oo markaasi ay ugu amraan waxaan hayay inay dhiibaan balse waxaan watay telefoonkayga gacanta kaasi ayaana ku wareejiyay marka iga qaateenna waa iga soo tageen kadibna wixii meelaha kale ay kasii mari karaan ayay sii mareen dabcan waxaana dhacday in ay markaasi ay la kulmaan laamaha ammaanka isla markaana laga qaado telefoonadii ay wateen waxaa jirtay telefoonadii wicitaanka ugu dambeeyay inuu kamid ahaa Cabdifataax Matawakal oo ay sidaasi ay ku soo waceen isla markaana ay weydiiyeen numberkan ama mobilkan qofka leh haduu yaqaan hadii kale isaga ayaana soo wargeliyay in mobilkayga ay hayaan laamaha ammaanka subaxina aan ka doonan karo waan ugu mahadcelinayaa shaqada wanaagsan ay qabteen ciidamada ammaanka inta kadib ayaa waxaanu sameynay dadaalo ku aadan helista macluumaadka faralkan ammaanka ka baxsan ee saacadihii u dambeeyay ka dhacay degmada Afgooye iyo ciidamo la sheegay in iyagu howlgal ka sameeyeen xaafadaha Afgooye ayna ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan xubnihii dadka shacabka ku dhibi jiray xaafadaha Imbagaati Xawataako iyo Fiaqiro saraya guud Axmed Tahliil oo kamid ah saraakiishii horkacay si howlgalkii xalay lagu soo qabtay kooxahan burcadka ayaa ii sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen laba ruux oo ah dadkii dhibaatada ka geysanayay xaafada Xawataako isla markaana agabkii isugu jiray mobil iyo lacag marka ay ku wareejiyeen dadkii lahaa taliga ku soo dhow warbaahinta Dayax howlgalada habeenadii u dambeeyay ciidamadan qaybtan suuqa waxyaabihii ay ku guuleysteen iyo sida howlgalku u socdo waa mahadsantahay xalay goor 4 saac oo habeenimo ciidamada iyagoo howlgal ku jira waxay qabteen kooxo tuuga oo dad soo dhacay oo taleefano iyo wax ka soo dhacay waxaa noo soo rogashay taleefanadii ay soo dhaceen iyo tuugadii inaan qabanno tuugadii iyo taleefanadii waxaan ku wareejinay dadkii lahaay dad kamid ah oo aan helnay gabalna waa haynaa tuugadiina waxaan ku wareejinay saldhigga inaan ku wareejinaa noo soo rogashay habeen maalina u taaganahay dadka shacabka macnaha inay waxooda si nabadgelyo ay ku qaataan hadda beledku waa degan yahay jooga magaalada oo u jeedaa marka sidee bay aad ku hesheen xogtan dhaca meelaha qaar inaad ku guuleystaan dadka shacabka waa nala shaqeeyaan nagana waa u dadaalnaa xilli habeen maalina u taaganahay dadka shacabka ayaa reportkana siiyay in la soo dhacay ka bacdina anaga howlgalkii aan qaadnay aan ku guuleysanaba inaan soo qabanno kooxii wax dhacay oo aan kaga hortagno meelaha kamid ah suuqa iyagoo soo lugeynayo dadka ay wax ka soo dhaceen xaggooda marka ilaahay nagu guuliyay inaan si fudud ku soo qabanno gabagabadii adigoo aad u mahadsan wal ka waran dadka aad qabateen iyo maxay ku hubeysnaan ma hubaysiteen tiradoodana waa imisa wallaahi tiradoodu waa rag laba gaaraya oo ku hubeysan qoryaha AK47ka ka bacdina qoryihii hubka ay wateen iyo ayaga nafsadoodii intaba waxaan ku wareejinay taliyaha saldhigga degmada marka inta howlgalka aan wadeen ugu dambeyntii waxa iska cabina miyaad kala kulanteen kooxahan ma wax iska cabina oo ay sameeyeen ma jirto isla markii ciidamadu ay isku wareejiyeen tirtay isu dhiibeen wax dagaal iyo wax iska cabina midna aysan gelin tuugno waa iska macnaha wadnihiisa ma fadhiyo marka duu tuuga qofku ma fadhiyo wadnihiisa waxa waaye qofka
qofka cadaaladda ah oo askariga daacadda ayaa macnaha wadnihiisu fadhiya oo wax qaban kara isla markaa mar ahaantii ciidanka arkeen hore iska dhiibeen. aad u maasantay. maahan markii ugu horeysay kooxa burcadda gacanta lagu soo dhigo ayagoo ku guda jiro dambiyo ka baxsan bani'aadinimada.